Somaliland meel walay joogaanba dibadii gudo dalka oo dhan iyo dadweynaha caasimada qalbiga iyo niyadda aan ugu soo dhaweyseen dal jacaylkiina iyo ilaalinta aqoonnimada ilaalinaysaan haddii aan wafdiga nahay aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa walaalayaal waxaanu la soo noqonnay warsan iyo weersan dadka Somaliland iyo inta Somaliland jecel iyo inta xaqa u hiilisa safarkani wuxuu ahaa mid guul u ahaa oo taariikhda gali doona cadawga Somalilandna wuxuu ahaa mid dhabarka ka jabiyey oo ka nixiyey walaalayaal haddii in badan oo aynu soo halgabaynay iyo sanado badan oo aynu halgan naf iyo maalba soo horay iyo sanado badan oo aynu dalka dhisaynay oo aynu dadkeena nabadaynay iyo sanado badan oo inta dalka dhisnay wixii dowladnimo wax badan dhinaayeen oo dadkeena u adkaysanayay oo qof wala Soomaaliya qurbaha jooga ama dalka ha jooga u dhawaad adeegayay maanta waxaan idinku bushaareynaya shalay haddii dadka qaarkii ama dowladaha waaweyn super powerkii ay dhahay naga leeyihiin dowladdii adduunka ugu weyn inay maanta inay noo soo jeedaan oo deydayso idina goobjoog maqanagihiinu way maqlayeen aragiinu u arkayo wixii ka dhacayay dalka Mareykanka walaalayaal shalay haddii hadalkeena aan aad loo dhageysanayn oo dhagaha cadowgeenu uu ka haystay dowladaha waaweyn maanta waxaad arkayseen iyada oo dhagaha dowladda Mareykanku ay aad u raaricaysiin oo dhagaysanayaan codka Somaliland iyo dareenkooda walaalayaal hadday dad badan awal hore odhan jireen waxyaalaha dabayshu xagganayna haysaa waxbaa inaga siya waxaan idinku bishaaranayaa maanta dabayshu inay dhabarka inaga hayso inay riixayso oo leedahay hore u socda guushu way dhowdahay walaalayaal waa arkayseen waxaan idinka maqnayn muddo dhowr toban cisho ah 2 cisho 3 cisho la socday dhexda lagu jiray mooyaane intii kale aanu hawl gallay waxaanu gallay 23 shir oo aanu la gallay waxyaha kala duwan ee dowladda Mareykanka iyo baayac mushtarkooda iyo jaamacadahooda iyo macahadooda baarista iyo hal shir oo jimcada qurba ka dhaxayso New York ahaa intaa waxaa noo dheeraa intaa in ka yareen oo habeen iyo maalin ah oo ugu badaayeen dadkii Somaliland jeclaa u halgamay ee qurba joogga ahaa oo meelo badan isaga yimid gaar ahaan dalka Mareykanka dhammaan isaga yimid iyo Canada iyo qaar waliba meelo kale ka soo duubay intaa dhowr cashan ka maqnayn gabal iyo waa hawl culus oo laakiin aan laga daalay naftu jeclaysanaysaa wadi waxaad dhageysanayseen oo aragteen maanta dowladda Mareykanka oo dowladdeedu aanu ku wada hadlaynay dalka Somaliland iyo wixii soo maray waa ogtihiin adna goobjoog baanu ka nahay waxayna soo fareeneen naga sulayaan maanta waa ictiraaf oo qura baryeedu kuma naaniman waxna sideedu kuma naaniman na taageeradu kuma naaniman inta baan laga dhisanay ummadaasi xaq waxa uu dowladda qaranka weyn baa tiinay ictiraaf nagamana diidana waxay yiraahdeen maanta ay suuqeen horeysa wax walibana wuxuu koow iyo laba iyo talaabo loo diyaar garoobo hawlahaas ay doodmayna waxaanu sa diyaar u nahay inaanu wax wal oo labadooda qabsaanba ila qabsano annagoo karaama iyo ixtiraam oo qadarinayna inaynu wadaagno wax walba oo ka mid yihiin koow hadday siyaasadda guud tahay hadday nabad tahay hadday amniga bariga iyo badaba tahay hadday mushtar tahay hadday tahay waxbarasho iyo isdhexgal bulsho intaba waxaanu diyaar u nahay inagoo labadooda isqadarinaya inaynu wadagalno oo hawsheedii bilowno oo aynu qaliyo warqad qaadano oo dowladda soo jira loo bilaabo maanta se waxaan idinku yeernay inaanu albaabkeedii furno oo u baahanahay inaanu iskaashano haddii loo dowladnahay taasaanu idiin sidaa oo idina arkaysay walaalayaal waxaa goobjoogta inoo wada haysaan telefoonada iyo internetka wada haysaan in dowladda Mareykanka labadeeda golo baarlamaan senatorska iyo kongareesku ay laba sharci oo ku farayaan dawladda in degdeg Somaliland
loola wax loola qabsado oo si weyn loogu dhowaado ay farayaan dowladda waxaa arkayseen xeerar ama farrimo loo diraayo oy golayaasha maraykanka ugu dirayaan muddad yar ee aanu joognay in ay dowladda arrimaha dibaddu si weyn wax ula qabsato u howlgasha somalilan iyadoon cidda u soo maraynin waana tallaabo maanta inoo koowa iyo albaab inoo furmay waxaanu idiin sidnaa oo aanu ka soo celinay caalamka maanta shirkeennii iyo shirarka aanu ku jirray iyo fariintii qarankana noo dhiibay ee distoorkuna faray ee qaranku noo higmadow qadiidada gaarsiiya ummadda weliba meelaha ugu waaweyn jimciyadda qurmaha ka dhexaysiya maraykanka in maanta intaanu geynay weliba miidiyaha maraykankuna aanay ka warwareegine maanta af kasta oo adduunka lagu hadla lagaga dhegaystay iyo dal walba oo adduunkaaba oo ay gaarsiiyeen miidiyaha maraykanka walaalayaal iyadoo cayaddu kulushahay idinkoo wararka intiisu badahayay waxaanu maanta inoo sidnaa inuu inoo furmay xiriir cusub oo bilow ah oo laakiin dowlad iyo dad bay nooga baahan hawl badan maraykanku iyo dadkaan dhegaysanaya intaasoo loo sameeyey shir iyo faasilita maxay noo qadarinayeen annagu ashkhaas baanu ahay waxay qadarinayeen shacabka somalilan meelu joogo gudo iyo dibadba iyo halganka ay soo galeen iyo dalka ay dhisteen iyo tala wadaagga iyo dimuqraadiyaddooda iyo inay madaxdooda doortaan iyo inay wixii gudooda khilaafkooda xaliyaan oo u dhabar adeegeen duruufaha adag ee haysta qadarintaad ku mutaysateen hawshaa aynu soo gallay ee shicbigoo dhan bay ku mutaystay ayaa laynagu qadarinayay oo annagana nagu ixtiraamayay idinka laydinku qadariyaa laydinku joogay waxaynu u baahannahay inaynu halkaa ka sii wadno maanta meel ilaahay lagu mahadiyaa baynu joognaa waxaynu caalamka oo dhamme maanta dal kasta iyo af kasta laga dhegaysta oo laga hadlayaa qadiyadda somalilan waxa ku xiga iyada oo ictiraafka inoo muuqda maanta maalintii hore halkan aad ku imid ee aan konakari ka imid ee cilaaqaadka qolada xamaroogeysa waxaynu ka ballan qaadnay halkan ay ahayd halkan aynu taagnay inagu waynu wadaynaa adduunka dowlad walba u tegaynaa caalamka oo dhan tu walba u tegaynaa qadiyadda horeegaynaa iyaguna mid walba cilaaqaadka u jireen maantana maraykanka u jireen hadday ku dhacayaan keni waa kuu jirayey aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa warka intaasaan kusoo koobi waa cadceed dad badanoo weynaga horreeyaa waa mahadsantihiin hawshaa ku timaadeen waxaa inoo ballana somaliland aynu hawsheeda iyo dhismaheeda wadno dadkeenna oo walaagamo gacmaha isqabsada innaga oo qadiyaddeenna u dhabardeegantayana hadhay qof waliba dhibaatadu qaba isaga oo qaranka hormariyatiisa ayaa inoo ballana aad iyo aad waa mahadsantihin wasalaamu calaykum